waxaan tilmaamayaa dhowr shay. kow, waktiga waxa ugu fiican ee lagaga faa'iidaystaa waa wax akhris. waxaanay u arkayeen culamadii muslimiinta ahayd qiimaha waktigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo. waxa ugu badan ee lagu soo saara misaal, haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido, rubuc saac intuu leeyahay rubuc saac more than 10 pages baad akhrii kartaa. qofka ugu gaabiyo qiraa'o, qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido sanadkii misaad akhriyaysa? sanadku 365 maalmood soo maahay, waxaad akhriyaysaa 3650. that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhamayn karaysaa. ugu yaraan buugga caadiga iyo normalka ahi waa 300 ilaa 300 iyo waxoogaa bage, 360 bage meelahaasi, ama 400 bage markaad tidhaahdo. haddaad maalintii 10 daqiiqo wax akrinayso, macnaheedu waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan 10 buug oo noocaasi ama dhowr iyo 10 buug oo noocaasi aad dhamaynaysa. yani mawsuuca fi cilmi alxadiida, ama mawsuuco fi tafsiira, ama mawsuuco fi cilmi kale ah ayaad dhamayn kartaa bimujarad inaad u qorshayso inaad akhrido maxay 10 bage ama 10 daqiiqadood inaad wax akhrido maalintii. haddii ay waxbarashadu caynkaa noqon kari lahayd, markaynu dhahno waktigaad dilaya, imisaad waktigaad khasaaraysaad u malaynaysa, imise se waxbaad baran kari lahayd. yani culamadii muslimiinta hore waxaa la yaqaanay waxay ahayd dad mawsiiciyiina. mawsuucada yani dad encyclopedia, qof wixii lasoo qaadaba ka jawaabi kara. hadday culuum diineed tahay bikulli funuuniha, iyo hadday tahay culuumtii casrigooda jirtay bikulli funuuniha, ama astronomy ha noqoto, ama geography ha noqoto, ama taarikh ha noqoto, ama tib ha noqoto, ama philosophy ha noqoto, ama riyaadaad ha noqoto, xisaab ha noqoto, waxay doonta ha noqoto. caalimka faqiihe masaajidka fadhiya wuxuu ahaan jiray mawsuuca mutanaqila, maktabad guuraysa oo kulli lfunuun keligii laga heli karo. sabab kalena may jirin, dadka kamay caqli badnayn, bini aadam ka baxsan may ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad waktiga ka faa'iideeya. waxay ahaayeen dad waktigooda ku bixiyey inay wax baran karaan. maanta waxay dhahdaan averageka dadka caadiga ahi bay dhahdaan ugu yaraan 3 saacadood bu tv daawadaa bay dhahdaan. averageka caadiga marka laisku dardaro 3 saacadood wakti ku dhadhow bu tv daawadaa. haddaad 3 saacadood wax akhriyi lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa? yani halka tvguna haddaad buug ku bedeli lahayd ay fanku doonayo ha noqdo, waxaad soo bixi kari lahaa yani في خلال 10 سنوات ama في خلال 15 سنة waxa dunida lagu hayo fan iyo waxa jaahil ka noqon lahayd ma jirin. Ah